waxaa maanta lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer ee magaalada Burco munaasabad ballaaran oo lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay ururka mideynta iyo horumarinta isboortiska ee gobolka Togdheer waa arag munaasabadaasi oo sidoo kale koob lagu guddoonsiinayay kooxihii ku guuleystay koobka Rabadaanta ee loo qabtay dhalinyarada cuslaatay ee gobolka Togdheer ayaa waxaa ka soo qayb galay barasaabka xigeenka gobolka Togdheer ana kusimaha barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Bubaxle maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad Xildhibaan Mubaarak Yuusuf علمي بدي مسؤولين وزارة الدنيا عيارها قبل كتقدر مسؤولين تورك ويارك يحبنا كل هذا ترابضان مناسبة لجو حساي سنة جورده كسورك أساس كورك ويارك أي واحد قرن تبع الكاسيكا لمارك الدقمة برع محمد يوسف ماد وحنوس وجدي ورك ويارك هم بليو يا مانكو عدن حسك سنة جورده ده وحنو يدي أكيد نقول دنيا ربع إن يونتي سوق هاي حدا نقطان نقول كهلين waxyaabaha aanu ku faraxsanahay way waayo dhalinyaradu waa nala shaqeysa shaqada aan gobolka iyo degmada ka hayno 80% waxay ku xiran tahay dhalinyarada waayo dhalinyaradu waa raasamaalka wadanka marka waxaan jecelahay had iyo jeer horumarkooda waa jecelahay cid baa gareyso ayaga ku dhex jirto sida ururkan way arag dhalinyarada tusto wadada sax ah aad iyo aad baan u soo dhaweynay halka ururka waa arag waxay ku qoreen labadaas meel ku duuleena horumarka iyo mideynta hadii labadan la helo oo ururkaas uu nagu hogaamiyo wasaaraddu nagu hogaamiyeen waxaan diyaar u nahay anagu inaanu kala shaqeyno midnimadu maxay noqonaysaa magac kaliya waxay noqonaysaa mideyntu ay noqonaysaa marka gobolka loo qabto tartan gobolka oo wada ciyaaro laakiin haddii qaarna ay ku ciyaaraan dhinacan ku ciyaaraan dawli waxba ay naga siiya munaasabadaasi intii ay socotay waxaa ka hadlay maamulka Carwo Dalxiis iyo xubin ka socotay shirkadda leerka Heeko kuwaas oo ururkan waayara ka taageeray maalgelinta tartanka dhalinta cuslaatay ururku dhigay bishii barakeysneed Rabadaanta Jamaal Hawa oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha gobolka Togdheer oo halkaas ka hadlayay waxa uu yiri runtii ka wasaaradda aad baan ugu hambalyeynaa ilaa heer wasiir ilaa heer madaxtooyne waanu gaarsiinay wax qabadka ururka dhalinyarada ee waa arag maanta mid qormisan maalintii ugu horeysay deesha ilmaha wax yar bay runtii kooban laakiin waa taariikh markaad soo oragto dheer runtii way ku amaanan yihiin kaliya waxaan idin xasuusinayaa dhalinyaradu waa arag in runtii markay jirto anagu safar baanu ku tagnay caasimadda gobolka dalka Soomaaliland Hargeysa wasiirka dhalinyarada sports ka waan la soo kulanay director general ka waan la soo kulanay director ka waxdiyadka waan la soo kulanay waxa la Burco idinku isku tashada tartankiina waa la qabanayaa qurbo joog iyo dal joog maamul gobol iyo degmo labadina maanta way nala fadhiyaan munaasabadani intii lagu guda jiray waxa halkaas lagu soo bandhigay wax qabadka ururka sanad jirsaday waa arag munaasabadaas ay waxa soo afmeeray gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Bubaxle waxaana halkaas hadallo amaan iyo dhiirigelin isugu jiray uga soo jeeday ururka waa arag iyo dhalinta ciyaaraha ee gobolka Togdheer waxaana uu yiri waxay ku qurux badan tahay oo ay taariikhdu ku haboontay oo ay bulshadu qiimo ku leedahay waxaan maanta aydan dareemay qof xumeeyay sheegay waa maxay qofka wuxuu leeyahay reerkeeni baa laga tagay adar waa been weey waxa qiimo lagu leeyahay waa maxay waa inuu qof in xiyaasiya noqdo shaalika wada noolaanshiyaha beesha cusubed way ka reebanta wallahi jifadaada hadaad istiraaho maanta wuxuu qayb nin walba wadka dilaya gurigoodu yaala ee loo bangareeya fahmtaa فارس قاتل كاي إيه كدليا وريركينا كابد بعدين أو صاحب كاي gabagabadina waxa halkaas lagu guddoonsiiyay shahaadooyin shirkadaha ka taageeray qabsamida koobka Rabadaanta ururka waa arag gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco iyadana halkaas koobab iyo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyay kooxihii ku guuleystay koobka dhalinta cuslaatay ee bisha barakeysan ee Rabadaan waa Khalid Bakeele shabakada caalamiga ee Ictiraaf News Burco